diblomaasiyaddu waa dariiq Soomaaliland ku kasbanayso cilaaqaadka caalamiga waa qalinkii Maxamed Cumar Sheekh Ibrahim diblomaasiyaddu waa xirfad aqoon u baahan oo la xiriidha macmiilka dawladaha iyo iibkeynta dana isdhaafsiga qaramada adduunka diblomaasiyaddu waa nidaam ay adeegsadaan hogaamiyayaasha adduunka oo ay markaasi ku meel mariyaan masaaliixda wadamadooda kana gaboodsadaan ismaqooninta dawladaha adduunka sidoo kale diblomaasiyaddu waa hanaan hogaamiyayaashu ay u maraan masaaliixda wadamadooda ugana faa'iideystaan golayaasha caalamiga ah iyo kuwa goboladaba xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro hogaaminayo waxa ay dardargelisay soo nooleysay sidii jamhuuriyadda Soomaaliland ay masraxyada caalamka codkeena ay u gaarsiin lahayd madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro waxa alle uu ku guuleeyay inuu fagaaro caalami ah oo ahaa shirweynihii dawladaha adduunka ee toddobaadkii hore ka qabsoomay dalka Imaaraadka Carabta uu si karta iyo karaamo leh uga xog waramay qadiyadda madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliland iyo fursadaha ganacsi ee ka banaan shirkaasi oo ahaa fursadii ugu weyneed ee nooceeda ah ee aanu wali helin madaxweyne ka horeeyay mudane Cabdiraxmaan Cirro waxa madaxweynaha Soomaaliland dooda qadiyadeena uu gaarsiiyay 140 wadan 8 shirkadood oo ah kuwa maalgashi iyo waliba in ka badan 400 oo wasiir oo ka socday wadamada caalamka sidii uu tibaaxay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland ahna afayeenka xukuumadda Soomaaliland mudane Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle waxa fursadaasi dahabiga ah iyo madaxdii wafdigeenu la kulmay ay inagu qaadan lahayd waqti dheer iyo dhaqaale badan hase ahaatee shirkaasi waxa uu noo saamaxay in aynu goob ku wada aragno beeshii caalamka warsidaha dawladda Imaaraadka Carabta ay sida tooska ah uga faafinaysay khudbadda madaxweyne Cirro waxa daawaday oo dibadda kala socday fariinteenuna ay gaadhay in ka badan 350 milyan oo qof taasi oo faa'iidada ama sadheeftii ugu yareed ee shirweynahaasi aynu ka faa'iidnay sidaa daraadeed waxa ka go'an xukuumadda Soomaaliland inay albaab walba u garaacdo sidii qarankani himiladiisa madaxbanaanida way uga midhadhalin lahaa iyo waliba sidii dawladaha iyo shirkadaha caalamiga ahi aynu u kasban lahayn isla markaana uga heli lahayn maalgashi iyo cilaaqaad ganacsi ugu dambeyn waxaynu ku boorinaynaa shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland in aynu xoojino isku duubnideena oo aynu la shaqeyno xukuumadda Soomaaliland ee haleyskeedu yahay wadajir iyo waxqabad gunti iyo gabagabadii hadal ahaan ma buuxshee hamigeenu waa wadajir higsigeenu waa horumar hadafkuna waxqabad weeye